دشي علم مدوع عيلك نغسار وعيني كو عديني عد كسيا علي حاجي سيا وعلي مساريو ددكي كو عيانتو مايه adiguna dhashi culimadu ciilka naga saar ku codaynay codka siiya cali xaaji siiya madaxweynaha Puntland Soomaaliya ahna madaxweynaha mustaqbalka iyo wafdiga la socda iyo inta ay yimaadeen mudane madaxweyne ku soo dhaweynta buurtile oo aad arkayso aan lagu tilmaamayn ku soo dhawow muradka doonaysa oo khayr ah ku soo dhawow madaxweynaha u socotid insha Allah ku soo dhawow sida aad jecesho khayr ah dadka soo dhaweynta anagu waxaan ugu daraa duco kalsooni naga ah meel barbarahaanu joognaa lama kala harro sidaad naga arkaysid baa naga daacada waxaad doonaysoo khayra ku soo dhawow intaas baan halkaa ku dhaafaynaa waxaan ku darayaa intaad musharaxa tahay iyo madaxda haddaad la wareegtid Puntland Soomaaliya madaxdeeda haddaad la wareegtid iyo intaa musharaxa tahay amni iyo iimaan baan kugu ognahay bulshadaku camirano caliyo cayn walbaa taag cirrooliyo carruuriyo cadrado culimaani diinta casrina ku cayaartumaha iyo ciidamaana heegay codka iyo halhayskuudu waa calanka noqaaday caliyow soo dhowow maanta waa ku calmaanaynaa tahay ciriqna lahayn caqliyo cilmiba waad qabtaa ciriqna ku dheer caliyow soo dhowow maanta waa ku calmanaynaa reer Buurtile waxaan leeyahay Allah idin sharfo sida quruxda badan aad noo soo dhaweyseen aad baan raad uga nahay aniga iyo wafdigii la socday oo odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka isugu jiray aad baan uga mahad celinayaa bulshada Buurtile dhammaanteed sida miisaan kale oo mugga leh oo quruxda leh oo gobonnimada leh oo aad maanta noogu soo dhaweyseen degmada Buurtile aad baan ugu faraxsanahay Buurtile waxaan leeyahay guul Puntland waxay u baahan tahay dad u hagarbaxa waxay u baahan tahay hoggaan waxay u baahan tahay hoggaamin waxay u baahan tahay khayraadkeeda in loo soo saaro waxay u baahan tahay dadkii ka soo shaqeeyey ee halkaas soo gaarsiiyey in loo mahadnaqo intii dhimatay in loo duceeyo inta nool cimrigooda ilaahay inuu dheereeyo loogu duceeyo wax weyn oo wanaagsan oo gobonnimada ay qabteen innagana waa noo qabteen Soomaalina waa u qabteen Puntland waa meeshii Soomaaliya laga taageeray dib looga soo dhisay filla Soomaaliya calankii Soomaaliya laga taagay madaxdii Puntland ay madax ka noqotay waxaan aad ugu faraxsanahay dowrka Puntland ay cayaartay Puntland way awoodaa inay kaalinteeda ka soo baxdo way awoodaa inay Soomaaliya kaalintay ku lahayd ka qaadato way awoodaa inay dadkeeda iyo dalkeeda horumarin gaarsiiso ma dhici karto 20 sano ka bacdi qofka dhaawaca dibadda loola cararo ardaygii jaamacadda ka baxay inuu shaqo waayo badii iyo barigiina ka shaqaysan weyno waxa ballanteenu tahay Puntland oo horseeda iyadoo horseed u ah Soomaaliya horseed u ah Puntland maxaa tirahdeen Soomaaliya maxaa tirahdeen